maanta anoo farxada u imaaday waxaan ka rabaa waxaan rajaynaa aan ugu soo talagalay in ilaahay u abaal mariyo marka koowaad sax waay marka labaadna intii ani amal oo maanta baadi ka maqan tahay in ilaahay ayagana sidaan oo kale ugu farxiyo amiin marka saddexaad ilaahay baa mahadin iskale amiin sax waay Cabdiasiis iyo shaqaalahoodan ilaahay baa u abaal marin kara muuqaalkan waa farxad aad u ballaaran allahu akbar laakiin waxaan idin xasuusinayaa hooyadan gabadha ka maqnay 17 jir ah oo qaangaara way murugsanayd hadda gabadhi way heshay sida qaybta hore dhaca arkayseen laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo hooyadan waa isoo wacday waxay igu tiri wiilkaygiyo gabadheedu waa helay shalay qof loo baafiyaan ahaa gacantana wax kuma hayo shalay wax laygama qaadin maantana gacanta wax kuma hayo waan xishoonayaa waxaan ugu bishaareeyey in barnaamijka baafinta uu yahay barnaamij ayada ay leedahay oo muhiimadda iyo farxadda ugu weyn ay tahay inay dadka hor timaado ay tiraahdo waa mahadsantiin gabadheedu waa helay waan ku qancin waayey hooyo iimaan badan waaye ilaa markii dambe aan dhahnay xitaa baawracaaga anaga bixinayna mow way noo timid way soo laabatay maantana waxay la wadaagaysaa xog yaab badan gabadha 17 jirka ma lumi karta waxay dhacay inuu sheegaysaa dhakhtarka lafaha ee isbitaalka xamar waxa uu kaa daweynaya lafaha seedaha iyo margiyada ma isku aragtaa kala goosyo xanuun sida jilbaha xusullada kala goosyada gacmaha anqowyada kala goosyada cagaha sidoo kale ma isku aragtaa xanuun murqaha ah xanuun seedaha ah iyo xanuun margiyada ah ee faahfaahina naga soo wac nambarada shaashada kaaga muuqda salaamullaahi calaykum saaxiibayaal soo dhawaada waa baafin waa baadigob waa elintro cabdilcasiis waa muuqaal saameyn badan saaxiibada facebook page follow iyo like youtube-kana subscribe na dhiirigeliya dad aan iska dhigno haddaan annaga dad iska dhigno dadkeena waa ku filannahay wallahi aysan hay-ad u baahnayn wax kale u baahnayn innagaa is caawi karno sidaa daraaddeed muuqaalkan farxaddana sii tuura oo meelo badan gaarsiiya aadoo mahadsantihiin soo dhawow marka horeete magacaagoo dhammaystiran qofka aad tahay shalay iyo maanta iyo farxaddaada la wadaag العاصمة هوسبيتال waxaa ka howlgala Dr. Haytham Ahmed Abuud oo loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan ee daweynta dhalmalaanta. Dhakhtarku waxa uu sameeyaa qalliimada burooyinka minka, furista tubooyinka ugxaanta, dayactirka dabaca kaadi haysta dumarka, fiiro gaar ah dhammaan qalliimadu waa laser. alxamdulilah ilaahay mahadiisa waaye marka koowaad ilaahay baa u mahadinaa marka labaad Cabdiasiis oo ii baafiyay ummadda islaamka iga gaarsiiyay iyo wixii walaalay oo intii islaam ummadana Maxamed oo ii garaaftay yaa ka maqla marka hore waxaa iga maqleed gabar Faadimo Xasan Xaaji Ibrahim la yiraahdo oo meeqa jir ahayd 17 jir sanadkan 2024 u ahayd waayahay marka hore dadka waxaa xasuusinaa muuqaalkii hore in la xasuustaan gabadheedu waxaan u sheegi lahaa in horta meel alla meeshay joogto ayna soo ogaato annaga maadaama annaga waalidkeeda aan u baahanahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay ii sheer gareeyaan oo meel walba meeshay ku jirto haday ay garanayaan mise ay aqoonsadaan isoo xiriiriyaan maanta marka la soo laabatay gabadhaada markii la baafiyay sidee ku heshay dad badan ay walaalay waa ay caawiyeen oo ay duceeyeen adiga ka mid oo dhowr bilood camal baafinta ku jirtay marka islaamkaas ducadooda ilaahay ii aqbalay waxaan ku helay wiil gabar oo aan taqaano gabadheedu meel ku sheegtay ayadoo mahsan oo meel iska joogto oo ima waxba aan kala garanaynin oo telefoon hata aan dirsanayno waxba aan ka warqaban oo iska joogto qof noocaas aan meesha ku arkay tiri waa malayso waayay waa orday waa tagay gabadheedu meel iska joogto meel kaamam dhexdooda iskaga jirta arkay kaam dhexdiisa deegaanka laga helay kaxshiqal marka horeetana meesha ay degneed oo ka tagtay degmada dayni lahayd waxay aad iskuul oo marwasi lahayd dhiganaysa subaxday naga soo tagtay soo u tagtana waa la waayay meeqa jir ahayd 17 sano sanadkan 17 qof weyn gabadhaad ma xanuunsaneed ma xanuun ma qabin gabadha laakiin xoogaa waxba taabtay waxay taabtay ma garanayna ilaa ay hadda soonki dhan waa la jihaadaya quraan iyo dunya lagu la dabay ilaa ay hadda haya alxamdulilah intaas saas waxaan sababanayna ma dhihi karno anaga ilmu qeyb ma nihiin waa sax gabadha marka maxay sheegtay ayada markii la wareystay see wax u dhaceen ma soo lama weydiin waa la weydiiyo weydiin badanna lama su'aal badanna waa dadkeeda u diiday oo xoogaa quraan saar waxaas u socday yaa la su'aalina waa la laakiin waxay tiri ana iskuul socdo igu wardambeysay tiri hadaan iskuulka aad kadibna ana meel kala jooga la arkay maskaxda bini'aadamka daciif ah haya saasay tiri marka dambe ilaahay noo sakhiriyo intaanu islaam ducadooda kulay dhulku ma dhigin ilaahay baa noo aqbalay dad fara badan ku duceeyay oo kula faraxsanaa maxaad kaas dhiilahay maanta anoo farxada u imaaday waxaan ka rabaa waxaan rajaynaa
aan ugu soo talagalay in ilaahay u abaal mariyo marka koowaad sax waay marka labaadna intii ani amal oo maanta baadi ka maqan tahay in ilaahay ayagana sidaan oo kale ugu farxiyo aamiin marka saddexaad ilaahay baa mahadin iskale aamiin sax waay Cabdiasiis iyo shaqaalahoodan ilaahay baa u abaal marin kara waa isoo wacday waxaan kugu wargeliyey in baafinta marka lagu sameynayo wax condition ay shuruud ay isku xirneen markaas soo laabatan waxay ku xirneen waa jiraan dad hadiyada yar keeno laakiin muhiim ma ahan muhiimadda annaga waxaa noo ah qofkan maqan weliba gabareed wayna xanuunjisay qaangaara in la helo waana kula xanuunsanaynay aniga iyo dadka muuqaal ku sheergaray meermada ku gaarsiiyey ilaahayna waa nagu guuleeyey maantana waa farxad shakhsiyaad abaal aad u hayso oo aad ku caawiyey garab istaagay kusoo wacayay kuu duceynaya ma jireen dad badan muslimiintoo dhan wax ii kala baxsan ma lahan marka ilaahay waxaan uga rajaynayaa in ilaahay uu abaal mariyo taasaa ilaahay uga rajaynaya iyo intii gaarsiday koo horaba hadda marka gabadhii quraana la saaray sura ka fiican tahay waa sidii hore maasha allah waa degan tahay laakiin maskax saas ah oo minaha istuuf badan iyo stress badan ka muuqda laakiin waxaan sheegaa Cabdiasiis oo dambi waaye haddii gabadhi la helay waayahay bal ka waran dareenkaaga maalinta halkaan ay ugu imaanaysaa murugsaneed iyo maanta maba la soo koobi karaba ishayda hataa meesha waa ka roon tahay saan u rajayna adigoo rafaadsan daalan muddo badan raadinayay alxamdulilah dhib ma lahan waa muhiimadda ugu ballaaran farxadda ay ahayd dadka Soomaaliyeedna waxaan leenahay waa mahadsantihiin haddii saan la isku caawiyo oo qofka muuqaalka loo sheergarayo qofka maqan waa la helaa muhiimad taas waay muuqaalkaaga hore waa aragnay aad loo daawado loo sheergareeyay taasna muhiimad ay ahayd muuqaalada kalena soo kala rajaynaa sidoo kale muuqaalkan waxaan codsanaynaa maadaama dad fara badan ay murugti hore og yihiin in muuqaalkan uu gaaro dadkiina soo wacayay war gabadha ma la helay dad badan oo gabadha ehel la ahaa aad ula xanuunsanaa oo dalay dibad joogo waxaan leenahay gabadhi waa la helay allahu akbar hadnoo maasan tahay insha allah haye wax kale noo sheegis ma jiro maya aad u maasan farxad ayaan midin sheegay aad u maasan tahay haye gudaana muuqaalka inta ayaan jeclaan lahaa kusoo gabagabeeyo intaan dib u kulmayno sidaas nabadgelyo waad ku maasan tahay daawashadaada iyo sida aad nagu xiran tahay Shamso Xasan Maxamuud Shamso waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaalida ee Lintir intee naga soo booqatay degmada Dayneele yaa kaa maqnaa oo aad u timid xafiiska Lintir oo aad baadigoobaysay gabar ani aan dhalay magaceeda ma sheeg Faadimo Xasan Ibrahim Faadimo Xasan Ibrahim waa meeqa sano jir 17 sano 17 sano ilaa goormay kaa maqan tahay 29 maalmood 29 maalmood waa muddo fog si gabadha loo waayay gabadha iskuul ay aaday iskuulkan waxay dhigataa har jarmal ku yaalo Marwasi la dhaho dhar madow ay wadatay haye subax iyadoo talaado ay tahay iga soo tagtay buugaagteeda ay soo qaadatay kadibna war waa ka waayay taleefankeedana waa dansan yahay taleefan weyn ay wadatay oo samnood ku jiro war ay wacal kale waa loo waayay